halkan waa madasha iskaashiga Soomaaliya waa Muqdisho oo markii labaad muujisay awood ay u leedahay martigelinta shirkan waxa fadhiya 42 wufuud oo matalaya 35 dal iyo hay'ado caalami ah oo Soomaaliya u yimid inay madaxda Soomaaliyeed ka dhageystaan dariiqa loo marayo mustaqbalka dalka waxa la isla gartay habka ay tahay in loo wada shaqeeyo waxa la falanqeeyay amniga siyaasadda loo dhan yahay dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada waxaana la muujiyay ahmiyadda ay leedahay in Soomaaliya oo dhinacyo badan horumar ka sameysay hoggaankeeda lagu garab istaago jihinta dalka gudoominta shirka iyo hanaanka madaxda Soomaaliyeed ay u soo bandhigeen guulihii la gaaray iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si loo gaaro waxyaabaha wali harsan waxay wajii micno gaar ah u sameeynayay dadka Soomaaliyeed oo waxa ay meesha ka saarteen cid aan Soomaali ahayn ay maamulaan ayaha dalkeena waxa diiradda lagu saaray sidaan ku sheegay mawaad iskaashiga Soomaaliya iyo dalalka adduunka ka dhaxeeya sidii loo horumarin lahaa isla maxaliyada iswaraysi iyo sidii wax la yiraahdo mutual accountability framework ama sidii la isula xisaabtami lahaa oo Soomaaliduna adduunka u xisaabtami lahayd deeqaha iyo taageerada ay bixiyaan inay noqoto mid faa'iido weyn u dhasho ummadda Soomaaliyeed beesha caalamkuna ay rabtay inay ogaato Soomaaliya horumarka ay ka sameysay arrimahaas aan sheegnay arrimaha diiradda lagu saaray waxa weeye amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dabcan maanta waxa in halkan lagu qabto dhaliyay kalsoonida lagu qabo nabadgelyada iyo in shir xamar lagu qaban karo iyo horumarka Soomaaliya gaartay oo la qabo in la aqoonsado dib u habeynta iyo kor u qaadista maareynta maaliyadda dawladda iyo kubcinta dakhliga canshuuraha oo horumar laga sameeyay waxay ahaayeen tallaabooyinka lagu amaanay dawladda oo waxay qayb weyn ku leeyihiin dardargelinta barnaamijka diinacfinta wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa tilmaamay in dadaal badan oo ay sameeyeen uu suuro geliyay in lagu amaano heerka maanta la joogo isbedelka dhaqaalaha ee laga hadlayo waxa weeye waxyaalihii aan ku heshiinay qolada hay'adda lacagta ee adduunka oo ay ka mid tahay in dakhliga waddanku kordho ayaa ka mid ah waxaad og tahay sanadkii 2017 bilowgiisii ilaa maanta dakhligayna soo galaa inkastoo haddana yar yahay weli inuu laab noqday ayaa waxyaalaha la gaaray ka mid ah waxaa ka mid oo kale sida usluubta cashuuraha loo qaadayo iyo usluubta loo maamulayo iyo sida daaha furan ee wax walba la isku og yahay iyo sida budgetka loo diyaarinayo waxaasoo dhan oo shuruucda caalamka la socda ayaa runtii iyaga aad u soo dhaweeyeen waxa kale ay soo dhaweeyeen sida aan u maamulno kharash bixinta saan u maamulno ay soo dhaweeyeen wada socodka wasaaradda maaliyadda halkan federal governmentka iyo wasaaradda maaliyadda ee magaranaysa dawlad goboleedyada ayaa federaalka ka midka ah ayaa iyagana aad loo soo dhaweeyay